Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Xeerarka joogtaynta ah. Muuqaalkan waxaynu uga hadli doonaa inaad mar walba wax joogtayso aadan ka niyad jabin. Halkan waa kanaalka Iftiinka. Magacayguna waa Diino Xuseen Shacab. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta saaxiibayaal. xeerarka joogtaynta ah waxaa jirta sheeko ka dhacday dalka Shiinaha waxayna ku saabsaneyd geed ka baxay dalkaasi oo lagu magacaabo bamboo. waxaa beeran jiray qoys beeraley ah oo ay daryeeli jireen maalin walba ayay waraabin jireen, balse mar sano dhulka ma uusan ka soo bixin. markii la gaaray guugii shanaad ayuu mar qura dhulka ka soo baxay. wuxuu u koray sidii geed 4 sano baxayay oo kale. arrinkaasi waxay la yaab ku noqotay dadkii tuulada degnaa iyo qoyskii beeraleyda ahaayeen. waxay noqotay sheeko xiiso badan reebtay. xiisaha sheekadu ay lahayd waxay tahay qoyskii beeraleyda ahaa ee geedka waraabiyey muddadii 4 sano ahayd isma dhiibin, kama caajisin joogtaynta, ilaalinta iyo waraabintiisaba. si kastaba sheekadu waxayna bartay 3 shay oo guul dhan saldhig u ah, waxayna kala yihiin go'aan, dulqaad iyo joogtayn. adeegso fikradda aan ugu magac daray ayaa waxay tahay fikir oo gadaal soo eeg. waa fikrad awood badan ku siin karaysa waa haddii aad la qabsato oo aad dhaqan geliso. waa hab fikir ku dhisan dabeecad, wanaag, la qabsi iyo joogtayn. waxaan soo gaarnay gabagabadii muuqaalka haddii aad ka heshay like saar oona sii gaarsii saaxiibadaada si aad u helno saaxiibo sidaadoo kaleeto u fiican. haddii aad nagu cusub tahayna subscribe dheh oo gambalelka furo si ay kuu soo gaarada muuqaalada aan soo gelino mar waliba. saaxiibayaal, maanta muuqaalkan halka ayuu ka egyahay. intaynu ku kulmi doono tan iyo muuqaalkan xiga. fii amaanillaah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.